annagoo la fadhinaa ayaa dhowr carruura oo uu dhalay oo cadcad oo aynay isku midabba ahayn ayaa noo soo galay odaygii bay aad yacni u dhunkadeen oo i marxabaysiiyeen markaasaanu ku nidhi carruurtan yaryari maxay ahayd isuma ekidin maxaad u tahay markaasuu yidhi carruurtan aabbaanu ahay oo seed ugu noqotay wuxuu yidhi aniga iyo carruurtan qiso la yaab leh ayaa iga soo martay oo maxay tahay qisadaa kaa soo martay wuxuu yidhi wakhtigii uu gumaystuhu haystay bilaada shaam ciraaq iyo suuriya iyo dhulkaa markuu haystay ayaan masar ka tegey dabeedna ciraaq baa waxaan ka furtay shaam baan ka furtay meel dukaan ah oo lagu iibiyo buugaagta iyo kutubta dabeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadh ingiriis ah oo quruxda aad yaabtabaa ay soo martay maktabaddii bay soo gashay waxbay iiga iibsatay anna waan u tanaasulo waxbaan ka iibiyey si fiican baan markaa uga iibiyo aan weliba aada ugu jebiyey maalin labaad bay ii timi sidii si la eg haddana waan ka iibiyey waanan u jebiyey dhowr maalmood markay igu soo noqotay ayaa qalbigayga iyo qalbigeedii isku xidhnayn waana ii dareentay inaan xiisaynayo islaam baa la socota marka islaantii baan u yeedhay waxaan ku yidhi aniga iyo gabadhan isku kaaya xidh waxay tidhi miyaanad gabadhan garanayn maya ma garanayo nin sarkaalahoo ingiriisa baa qabo oo saraakiisha magaalada haysta ka mida haddii uu sheekadaa inagu maqlo saddexdeennaba wayna laynaya arrinkaa markaa see la yeelayaa kama hadhi kare islaan yahay way iga tagtay buu yidhi maalin dambaan haddana is aragnay islaantii baan haddana ergow dirtay marka waxay igu tidhi islaantii waxay kaa rabtaa gabadhu lacag waxay kaa rabtaa 50 diinaaran oo dahab ah 50 garaam oo dahaba maalan waa lacag waxoogaay oo qofkii da faqiiri aanu kari karin 50 diinaar oo dahaba haddaad iigu dhiibto waan kuu keenayaa waan dadaalay 50 diinaar baan soo ururiyey islaantii baan u dhiibay habeennimadii bay tidhi gurigaagay kuugu imanaysaa ee ku sug gurigii baan ku sugay gabadhii oo dee addayax maadaba ii timi gurigii baan gallay waxbaan iska cunnay waxbaan cabnay saqdhaxo habeenkii markay tahay ayuunbaa ilaahay rucbi iyo cabsi igu soo riday markaasaan ku idhi amaa tastaxyi min allah naf yahay miyaanad ilaahay ka baqanayno ka xishoonayn wa anta hariibun dhulkanaad degan tahay hariib baad ku tahay wa bayna yaday illaah ilaahna wuu ku arkayaa wa tacsi laha maca nasraaniya markaasaad haddana gabadh gaalad a baad ilaahay kula caasinaysaa miyaa ilaahay baa qalbigaygii cabsi ku soo riday dabeedna gabadhii waan u cudur daarto waxaan ku idhi iska noqo caawa hawl ma lihie ayadoo cadhaysan ayay iga tagtay waagu markii uu baryey ayaan meheradaydii ku kallahay meheraddii markaan furay ayay barqadii iyadoo cadhaysan oo quruxdeedana aada yaabto ayay isoo hormartay shaydaankiibaa dareen hor la igeliyey markaasaa naftaydii canaantay oon is idhi man anta war adigu maxaa tahay ma cumar baa tahay ma abaabakar baa tahay ma dadkii saalixiinta baa tahay adu kuwaa miyaad gaadhi kartaa seed uga maarmi kartaa qoftan quruxda badan laazim waa inaad gaadhaa gabadhan muddaan markaa haddana ka shaqaynayay islaantii baan haddana erga u diray waxaan ku idhi waxaan rabaa inaad bal habeen labaad ergadii aad iga aqbasho oo aad gabadhii igu soo celiso waxay igu soo celisay hawshii way saro kacday 100 baa laga dhigay xisaabtii halkii 50 ka ahayd 100 baa laga dhigay deedna waan fakiro 100kii baan ku dadaalo waan soo xasiliyey kiish yar baan ku riday 100 dahaba oo diinaar islaantii baan u dhiibay habeennimadiina way ii keentay habeenkiina markay waqti dambe tahay ayuunbaa ilaahay sidii si la-eg cabsi igu riday habeenkiina iyadoo 500 maxaan ku dhaha 100kii diinaar haysata yani maca 100kaaga diinaar iska tag sheekhoy way iska tagtay waagii baa beriyey meheradaydii waan iska furtay maalin dambe ii soo martay baashii oo aad la yaabto markaasaa qalbigayga uu haddana raacay maalintii dambe aniga oo
jacayl la yaaban sidaan ka yeeli lahaa ayaan haddana islaantii u imi waxaan ku idhi maanta uunii ergeeyo gabadhii isukaya keen